maanta waxaa fursad noo ah inaan magaalada Saaxo mashaariicda ka socota aan aragno baahiyaha iyo kuwa cusubna aan soo kormeerno. waxaan halka lagu dhagax dhigay iskuulka hoose dhexe ee Saaxo oo lagu kordhinayo fasallo loo samaynayo deyr. sidoo kaleetana waxaa halka lagu dhagax dhigay iyadana dugsiga sare ee magaalada Saaxo oo runtii bilow ah oo aan rajaynayno dawladda iyo shacabkuba inay ka qayb qaadan doonaan. tacliintu waa waxyaabaha ugu horreeya oo ahmiyadda la saarayo si bulshadu ay u soo kabato, noloshooda u soo wanaagsanaato, duruufaha kala duwan ay soo mareenna ay uga gudbaan. shacab iyo dawladu isku tirsanaya waxaan rajaynaynaa inaan tacliinta ahmiyadda ay leedahay aan siin doono. waan uga mahadcelinaynaa bulshada degmada Saaxo sida mar walba ugu taagan yihiin horumarka magaalada iyo waxa shacabka iyo dawladooduba ay wada qabsadeen. waa magaalo koraysa, meel istaraatiiji ku taala, dhul wanaagsan haysata, bulsho wanaagsan leh. inaan nimaanana farxad gaar ah noo tahay si baahiyaha jira aan indhaheen ugu aragno oo wixii markaas nala gudboon iyadana aan ka qabanno. sidoo kaleeto intii aan joognay Saaxo waxaan maanta xariga laga jaray saldhigga degmada oo runtii si casri ah oo wanaagsan loo dhisay oo muddana gacanta lagu hayay. waxaa kaloo iyadana la soo furay maxkamaddii. mashaariicdaas oo dhan waxay noqon doontaa mashaariicda degmada nabadeeda iyo xasilinteeda iyo horumarkeeda qayb ka noqon doona. waxaan rajaynaynaa mashaariicda kaleeta ee muhiimka ah inaan ku sii dari doonno. gudoomiyaha degmada iyo mas'uuliyiinta kale ee degmada jooga iyo shacabka waxaan ka codsanaynaa dawladnimada taabagelinteeda in waqti aan wada gelinno, khaasatan booliiska iyo maxkamaduhu inay si wanaagsan u shaqeeyaan, tacliintu si wanaagsan u shaqayso, bulshaduna ay maaragtay xasilooni ay dareemaan. ciidamadana waxaan u rajaynaynaa inay ku filnaadaan difaaca guud ee deegaanada iyo dadka reer Puntland. aad baad u mahadsantihiin.